jigjiga magaalo magaceeda saxda uu yahay laaca. magaalada jigjiga waa magaalo muhiim u ah isku socodka Bangiga Itoobiya iyo Geeska Afrika. wixii ka horeeyay 1842 magaalada jigjiga waxay ahayd magaalo ay ku nastaan safarada u dhaxeeyay Saylac iyo Harar. jigjiga xasuusteennii caruurnimo waxa ay ku leedahay xasuus qurux badan iyo taxanayaal aan la soo koobi karin, kuwaas oo aan u booliyownay dhammaanteen. jigjiga waa magaalo laga helo cuntooyin kala duwan maadaama ay ku nool yihiin bulsho ballaadhan oo aan dhammaantood Soomaali wada ahayn. marka laga yimaado cuntada Soomaalida, cuntada ugu caansan ee magaalada jigjiga laga cuno waxa weeyaan canjeero xabashida. aniguna aad ayaan u jecelahay. mar walba waa cunto ka kooban khudaar fara badan iyo waxyaabo kala duwan. dhaantadu waa mid ka mid ah ciyaaraha ugu caansan ee Soomaalida, taas oo markeedii u horreysay ka hirgashay Soomaali galbeed ama Ogaadeniya. waana ciyaar dhabarka ku haysa ilbaxnimada Soomaali galbeed. marka koobaad waxaad goosanaysaa canjeerada, marka xigtana waxaad ku qaadanaysaa ta aad adigu jeceshahay ee aad rabtid. marka koobaad waxaan ku qaadanayaa baytaraafka, marka xigtana kaaroodka, marka xiga misirka, kadibna wadida. intaa kadib waxaan samaynayaa mataqaanaa waxaan ka siinayaa ham. lagama sheekayn karo. iyo buuraheeda, buurahaas oo isku xidhan waqooyi galbeed ilaa bari, laguna magacaabo silsiladda Gurays. waxaana ugu dheer buurta Karamardha oo ah buurta ugu caansan magaalada. waxaan hadda ku suganahay buurta Karamardha oo ah meel aad u qurux badan, dadkuna ay u yimaadaan si ay waqti ula qaataan faamilkooda iyo asxaabtooda. 1923 waxay jigjiga markii ugu horeeyay heshay adeega boostada, waqtigaas oo uu keenay gumaystiga Ingiriiska. 1956 waxay heshay adeega taleefanada. cadaymaha taariikhiga ah waxa ay sheegayaan in ereyga jigjiga uu la macno yahay carrada fudud. sidoo kale magaalada jigjiga waxa ay lahayd magac hore oo ahaa laaca. magacanina wuxuu ka turjumayay sida ay magaalada jigjiga u ahayd magaalo qurux badan oo soo jiidasho leh. sidoo kale magaalada jigjiga waxa weeyaan magaalo carro fiican oo ku wanaagsan beerashada iyo deegaanka. taasina waxa ay keentay in 200 oo sano ka hor ay ku hardamaan oo ay ku dagaalamaan awoodihii waqtigaas jiray. 1994 magaalada jigjiga waxay noqotay caasimadda Soomaali galbeed, markaas oo ay bedeshay magaalada Goday. intaa kadib waxaan rajaynayaa inaad ku raaxaysatay oo aad ka heshay muuqaalkan. fadlan haddii aad muuqaalka ka heshay, like saar, page-kana follow garee, sidoo kale muuqaalka sii share garee si ay walaaladaana u daawadaan muuqaalkan quruxda badan ee aan ka sameeyay magaalada jigjiga. Peace.